بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan qaadan doonaa casharkeenii saddexaad ee koorsadii aan ku sharaxaynay sida daatada loo maareeyo loona taxliiliyo annagoo isticmaalayna softwareka loo yaqaano Stata. casharkii labaad waxyaabaan kusoo barana waxaa ka mid ahaa some important tips oo ku saabsan Stata commandska. sidoo kale waxaan soo sharaxnaa ama soo bilownay Stata operatorska. maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay dhamaystirka qaybtii aan soo bilownay Stata operatorska iyo sidoo kale labada topic ee kala ah variables in Stata iyo Stata commands. intaas ayaa casharkeena ku sharxi doonaa. qofkii aan casharadii hore la socon oo labadii cashar oo hore aan la socon linkiskooda waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose ee descriptionka. fadlan soo daawo si aad u fahamtid casharkan. dabcan saan hore usoo sheegnay waxaan casharka hore ku sharxnay important tips. sidoo kale waxaan sharaxnay Stata operatorska waa sixid yar. qaybtaas markaan sharaxaynay relational operatorska afka wuxuu inaga soo dafay rational operators, marka dabcan sida meesha ku qoran waa relational operators. sidoo kale waxaan sharaxnay Statada in loo isticmaali karo ama loo isticmaalo as a calculator sida loogu isticmaalo. waxaan isla aragnay ilaa iyo 5 example oo isku darka iyo kala jaritaanka iyo isku dhufashada iyo isu qaybinta iyo jibaarka intaba aan iskula practice gareynay Statada. casharkeena maanta wuxuu ka bilaabmayaa dhowr hab oo calaamadda ama operatorka isku darka ama pluska ah loo isticmaali karo. markaan joogno Statada waxaa jira laba hab oo loo isticmaali karo calaamadda isku darka. number 1 waxaa loo isticmaali karaa amase marka calaamadda isku darka ah ay u dhaxayso laba number. markay u dhaxayso Statada waxay isticmaalaysaa ama waxaa loo aqoonsanayaa isku dar inay roolkaas waxay u taagnaa doontaa calaamaddaasi isku dar ayay u taagnaa doontaa ama addition ayay u taagnaa doontaa. example haddaan fiirino tusaale ahaan haddaan Statada ku qorno display 5 plus 7 waxay noo soo saari doontaa 2 alif ayay noo soo saari doontaa. dabcan calaamadda isku darka waxay u dhaxaysaa 5 iyo 7 ayay u dhaxaysaa. so markaas Statada waxay u fahmi doontaa inay tahay isku dar caadi ayay u fahmi doontaa. isticmaalka labaad ama habka labaad ee plus sign-ka loo isticmaalo haddii calaamadda isku darka ah ay u dhaxayso two string values laba text hadday u dhaxayso. string dabcan waa text, kii hore wuxuu ahaa number ayuu ahaa, kana maxaa waa text hadday u dhaxayso then waxay ka ciyaari doontaa roolka ah amase waxay u qaadan doontaa Statadu inay ka ciyaarayso rool loo yaqaano concatenation. concatenation maxaa waaye isku xir, labadii shay ayay isku xiri doontaa. tusaale haddaan fiirino display 5 oo ku xiran quotation marks plus 7 oo sidoo kale quotation mark ku xiran waxay noo soo saari doontaa 57, yacni 57 ayuu noo soo qaadi doontaa. haddaa fiiriso labadii number ayuu isku xiray. waxaa laga yaabaa inaad ka fikirtid ama isweydiisid why number 5 iyo 7 meesha ku haysanaahe ay noo soo saartay sidii hore isku darka ay u isticmaali weysay, yacni oo 12 ay noo soo saari weysay. haddaa fiirisid 5 waxay ku xiran tahay meeshan quotation mark, sidoo kale kana 7 kana quotation mark ku xiran tahay. Stataduna wax kasta oo quotation mark lagu xiro waxay u taqaanaa ase text ayay u taqaanaa. so meeshii numberka oo isaga diri jirtay hadda waxay u qaadanaysaa text ahaan ayay u qaadanaysaa. maadaama ay text yihiinna waxay u isticmaali doontaa roolka loo yaqaano concatenation oo labadii number ayay isu keeni doontaa. tusaalaha kale haddaa fiirino kasoo qaad kan ayaa text ah, saxa text u ah. so haddaa isku darno som iyo ali haddaa isku darno waxay noo soo bixi doontaa Somali ayaa noo soo bixi doonta. aan isla practice garayno labada hab ee loo isticmaalo plus sign-ka. labada hab ee loo isticmaalo isla practice garayno. kan koowaad wuxuu ahaa haddii ay laba number u dhaxayso waxaa loo isticmaali karaa isku dar ama isku dar ayay Statadu aqoonsanaysaa. so di 5 plus 7 haddaa fiirino resultiga noo soo baxaysa waa isku dar ayay aqoonsatay oo 12 ay noo soo saartay. sidoo kale isticmaalka labaad oo haddii laba text dhexdood loo isticmaalana waxay u aqoonsanaysaa concatenation ama labadii number ayay isku xiraysaa ama labadii shay ayay isku xiraysaa. so haddaa dhahno di quotation mark 5 sidoo kale quotation mark kusoo xir plus 7 oo quotation mark ku xiran
haddaan isla fiirino waxay noo soo saaraysaa 5 iyo 7 ayay isgarab dhigaysaa. example-kii kale oo Soomaaliya oo la isu keenayo haddaan fiirinana waxaan leenahay plus Ali Soomaaliya ama Soomaaliya aba ka dhignaba Soomaaliya. Okay, nice. So haddaa fiirisiin som iyo alia ayaa isu geynay kadibna waxaan ka dhignay hal eray ayaa ka dhignay ama hal word ayaa kusoo koobnay. waxaan soo practice garaynay labada hab plus operatorka loo isticmaalo marka la joogo statada. waxaan practice garay doonaa isla markaasna sharixi doonaa dhowr hab calaamada loo yaqaano asteriska ah loo isticmaalo marka la joogo statada. waxaa jirta 4 hab oo kala duwan oo loo isticmaalo calaamada asterisk marka la joogo statada. kan koowaad waxaa waaye haddii calaamadaas loo isticmaalo laba number inta u dhaxaysa laba number haddii la dhex geliyo laba number inta u dhaxaysa haddii la geliyo then waxay ka ciyaari doontaa roolka ah isku dhufashada ama statada waxay aqoonsan doontaa labadaas number in la isku dhufanayo. haddaan fiirino tusaalahan waxaa la isku dhuftay 5 iyo 7 then resultiga soo baxda maxaa waaye 35. sidoo kale haddii calaamadaas asteriska la dhigo string value gadaasheed kadibna laga sii dib mariyo number statada waxay u aqoonsan doontaa repetition in shaygaas intaas ama textigaas la soo celceli doono intaas oo mar la soo celceli doono. tusaalahan haddaan fiirino 5 display statadaan ku qorno commandiga ah display 5 oo ku xiran quotation mark kadibna laga sii dambaysiiyo calaamad asteriska ah iyo tirada 4 then statada waxay u fahmi doontaa 5 waxaad ii soo celcelisaa 4 mar. so meesha maxaa ku qoran 5 oo soo laalaabatay ilaa iyo 4 mar 4 shanaad ayaad meeshan ugu jeedaa. sidoo kale haddaan meeshan ku qorno bal kadibna aan ka daba marsiino calaamada asterisk iyo 2 statada macnaheedu waxay tahay statada inaan ka codsanay ereyga bal waxaad ii soo celisaa 2 mar thenna resultiga kuusoo baxaya wuxuu noqonayaa bal. sidoo kale haddii meeshaas numberka 2 ah haddaad 3 ka dhigno maxaa soo baxayo bal yacni numberkan wuxuu sheegayaa inta mar ee aad rabtid shaygaasi inuu kuusoo laalaabto. isticmaalka 3aad iyo 4aad waxaan ku sharxi doonaa casharada soo socda marka xarafka ama calaamada asteriska marka loo isticmaalayo variable name marka lagu dabaqayo ama suffix iyo prefix oo kale la rabo ama se la rabo in wax lagu comment gareeyo oo lagu qoraayo do file-ka. so annaga waxaan muhiim noo ah oo casharkeena maanta aan ku practice garaynayna waxaa waaye numberka 1aad iyo numberka 2aad. haddii aan isla practice garayno qaybta 1aad oo roolka multiplicationka dabcan multiplicationka hore u aragnay so waxaan leenahay 5 times 7 so 35 aa noo soo baxayso. qaybta 2aad oo repetitionka waxay ahayd di 5 ayaa waxaa la soo celinayay 4 mar ayaa la soo celinayay. so 5 mar la soo celiyo waa isla aragnay iyadana. then qaybta ku xigta waxay ahayd aan isla fiirino example-ka wuxuu ahaa bal in 2 mar la soo celiyo. so waxaan leenahay di bal oo ku jirto quotation mark then waxaan rabnaa inaan soo celino 2 mar inaan soo celino ayaan rabnaa. okay, so haddaa fiirisiin bal ayaa soo baxday sidii aan hore ugu aragnay example-keena. variables in stata ka hor intaanaan sharaxin variableska noocyada ay u kala baxaan iyo qaabka statadu ay u kaydiso aan sharaxno horta variable maxaa loo yaqaanaa iyo tusaalayaal ku saabsan variableska.
variable waxaa la yidhaha astaan kasta oo aan diraasa ku samaynayno. astaantaas waxay noqon kartaa number ama quantity taas oo la qiyaasi karo ama siba la cabiri karo. tusaalayaal oo variable ah maxaa kamid ah? waxaa kamid ah age-ka qofka ama da'da qofka, jinsiga qofka, ganacsi, dakhliga soo gala ama qarashaadka ay bixiyaan, qofka waddanka u dhashay, natiijada arday uu imtixaan ka keenay, qofka kalarka indhihiisa, gaariga nooca gaari oo qof haysto. waxyaabahaas oo dhan maxaa waaye waa variables ama waa wax dadku ay ku kala duwan yihiin. variable sababta loogu magacaabo maxaa waaye sababtoo ah daatadooda ayaa ama xogtooda kala duwan. dadka tusaale ahaan age-kooda waa kala duwan yihiin, jinsiga dadka sidoo kale waa kala duwan yihiin, waa male iyo female, ganacsiga dadka incomeska soo gala sidoo kale kala duwan yihiin, so that's why waxaa loo dhahay variable. tusaale waxaan sheegnay income waa kamid ah waa variable, yani waa dadka income-kooda way kala duwan yihiin dabcan. genderka sidoo kale waa variable sababtoo ah dadku waxay kala noqon karaan male iyo female ayay noqon karaan. okay, so markaan joogno statada variableska waxay kala baxaan labo nuuc ayay kala baxaan. labadaas nuuc maxay kala yihiin? string variable ama text variable iyo numeric variable. variable wuxuu noqon karaa text mid qoraal ahaan loo qori karo ama se mid number ahaan loo qori karo ayuu noqon karaa ama loo express gareyn karo. nuuca marka kaydinta ee statadu ay u kaydiso numeric variableska waxay noqon karaan shantan midkood. inay u kaydiso byte ama int ama long ama float ama double wax loo yaqaan. shantaas qaab ama shantaas nuuc ayaa numeric variableka loo kaydin karaa. sidoo kale storage typeka string variableska ama qaabka loo kaydin karo xogta textigana sidoo kale waxay noqon doontaa saddexdan qaab ee hoos ku qoran. dabcan saddexdan qaab waxay kala duwan yihiin mid kasta inta character ama inta xaraf ee ku qormi karta. tusaale ahaan string 1 up to string 80 intaas oo character, string 1 ilaa iyo 80 characters waxaa lagu qori karaa nooca statada ee loo yaqaano IC-da ah. وهكذا kuwa kale haddaa fiirisiin string 1 up to string 245 waxaa lagu qori karaa statada nooca loo yaqaano SE-da. string 1 up to strl waxaa lagu qori karaa stata nooca loo yaqaano MB-da. haddii aan fiirino marka waxyaabahan aan meesha ku sheegnay mid kasta descriptionkiisa haddaa sharaxno numeric storage descriptionka haddaa fiirino tusaale ahaan haddii variablekan daatada gelaysa ama xogta lagu kaydinaya ay u dhaxayso ilaa tirada ugu hooseysa ay tahay minus 127 tirada ugu badanna ay tahay 100, then nooca storagekiisa wuxuu noqonayaa byte. haddii daatada variableku ay u dhaxayso minus 32,767 ilaa iyo 32,740 yacni tirada ugu hooseysa variableka lagu kaydi karaa waxa waaye minus 32,767 tirada ugu sarreysa lagu kaydi karana meeqa waaye 32,740. nooca storagekiisa wuxuu noqon doonaa int. وهكذا kuwa kale haddaa fiirisidna sidaas oo kale waaye mid kasta numberka ugu yar ee lagu kaydi karo iyo numberka ugu badan ee lagu kaydin karo ayay sheegaysaa. dabcan saddexda ugu horeysa oo ah byte-ka iyo int iyo long waxaa lagu kaydi karaa waxa loo yaqaano integerska ama numberska caadiga. kuwan kalena waxaa lagu kaydi karaa haddii numberska ay decimal soo gasho float iyo double ayaa la isticmaali karaa. sidoo kale haddaan fiirino nooca kaydinta ah ee xogta lagu kaydiyo ama storage descriptionka string variableka haddaan fiirino string str1 waxaa ku kaydsami kara keliya hal character bas geli karo. str ama string 2 waxaa geli kara 2 characters. string 3 waxaa geli kara 3 characters. string 4 waxaa geli kara 4 characters. maxaa loola jeedaa marka? horta string waxaan kusoo sheegnay sharaxnay inuu yahay text sooma. textigaas marka muxuu noqon karaa string 4 oo kale tusaale ahaan maxaa geli kara meeshan mail ayaa geli kara. mail meeqa xaraf ka kooban yahay? 4 xaraf ka kooban yahay sooma. so
tusaale ahaan meeshan string 4 ma geli karto female ma geli karto sababtoo female waxay ka kooban tahay more than 4 characters ay ka kooban tahay وهكذا kuwan kale haddaa fiirisid mid kasta inta xaraf ama inta character ee geli karta ayay noo sheegaysaa haddii aan fiirino qaybta ugu dambeysa oo casharkeena oo uga hadlayno starter commands starter command so si aad starter command u qortid waxaa u baahan tahay inaad fahamtid afartan shay number 1 keyword ama keywords datadan aa analyze garaynaysid keywordkeeda maxaa waaye ereyga ku habboon maxaa waaye resultiga aad rabtid ereyga ku habboon sidoo kale waa inaad taqaanid variablekee isticmaale ama datada isticmaale waa inaad taqaanid textiga ku habboon haddii tusaalahaan aa variablekan label u samaynaysid ama waxyaabaa saas oo kale aa samaynaysid oo kale textiga aa qoraysid waa sidoo kale waa muhiim kan afraadna waa sidoo kale muhiimka ah waxaa waaye si starter command aa u qortid waxaa waaye operatorska isticmaalaysid dabcan operatorska waa soo sheegnay arithmetic operators iyo logical operators iyo relational operatorska kuwaas midka ku habboon ee datada ku habboon ee isticmaalaysid so waxaan leenahay isu geynta keyword iyo variable ama text iyo mid kamid ah operatorska ayaa wuxuu ku noo sameynaya wax loo yaqaano starter syntax ama starter syntax iyo starter command waa isku mid so si aad starter u fahamtid ama starter commands u fahamtid ama u qortid waxaa muhiim ah inaad afartan shay inaad taqaanid